بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxa aan la joogaa hotelka Mansour ka socday muddo 3 cisho hata la soo gabagabeynaya kulan weyn oo shir caalami ah oo dahabshiil uu ku qabtay halkan oo wakiiladiisa meel badan uu isaga yeeray marka halkan waxaan la fadhiyaa balsi aan uga wareysto mulkiilaha shirkadda weyn ee xawaalada dahabshiil Maxamed Saciid Ducaale dahabshiil bal محمد مركه hore waxaad nooga warantaa xagee ka kala yimaadeen dadkan aydin ku casuunteen ama sayid isugu yeedhan shirkan bismillaahir rahmaanir rahiim waxay ka kala yimaadeen 15 dal oo ku kala yaala qaaradaha waqooyiga America Europe Asia Afrika gaar ahaan Afrikada bari marka dadkani waa shaqaalihiin xafiisyadiina waa shaqaalaha iyagii xafiisyadii ka furnaa dhulka maxay tahay ujeedada markaa imika kulankan weyn aad isugu yeedheen markii ugu horeysay dalka gudihiisa ujeedadu waxay tahay waxaanu doonaynay inaanu si aanu lacagaha aan sharci darrada aanu u ilaalino iyo sharciyada soo baxaya cusub aanu isugu wada sheegno gaar ahaan taasan horta shirku u ahaa markii hore dabataasi macluum aha xafiisyada badankoodu sida Mareykanka Ingiriiska xafiisyada noocaasi iyagu tareerina hore ayay qaateen oo sharciyadeedii way sharciyo fiican oo dawladdu ku ilaaliyaan oo shaqaale aqoontoodu fiicantay weeye marka kuwa si ay kuwa dalka gudihiisa jooga si ay tareerin u siiyaan oo ay xafiisyadu isugu xidhmaan ayay arrintu ahayd marka sharciyadaasi cusub marka aad eegto saameynta dadka Soomaalida ee ay lacagaha u soo xawishaan gudaha iyo dibadba bal ka waran ma felayo wax dhibaato ma keenayso waayo sharcigan awalba waan ku dhaqmi jirnay mid ku dhow waayo waa sharciga hore shirkadu iyo kan way isku mid walba wuxuu nafarayaa in qofka lacagta loo diray uu yahay qofkii saxda ahaa ee lacagta lahaa oo lacagtuna ay tahay lacag xalaal ah oo sifa sharciga ku soo baxday marka sharciyadani ma kuwa dal waliba ee xafiisyadu idin ka furan yihiin uu leeyahay ba mise waa kuwa kale oo insan ka warqabno ay mesela Ingiriiska iyo Mareykanka soo saareen waa sharciyada dal waliba dalka soo dunida ka jira sharci buu leeyahay oo sharci cusub uu leeyahay xafiiskaasina wuxuu ilaaliyaa dalka uu joogo sharciga uu leeyahay ayuu ku ilaaliyaa marka كاون وي دل والبا مد عصب أنا ما نشيجين لكن كاون دنيا كتير بال أيوم بي ليسو شيء سي وحي الله هو بيو الله عقته أنا لقد درو دل كجودي سا دبت الله درو أي يتحقق لقى صادرة دل كجودي الله درو لبض بس أي شرعي سعد أي أمرته أيوم بال نترين كإسكسينين إن محمد سعيد دعالة دهبشيل شركة دينو إمك واتا وجو رقاق وين مركلا إيجو روليوجا سوماليدو أي كنوش هي مركا دتك وح أي وجا عوداني مك إنت النظام كان ضمن كوبية توانكي سبتمبر كبعدي لبدي كوريا كودي إن أي سوا صارين دلك واويني إن قف كلا دوني إنه ويسقروا مجلسي إن أنتم كنا دولار وح كبدنين أنا أقولين إنه لو حولوا dad badan bana jira Soomaaliyeed doonay mesela dhulkii inay maalgashi sameystaan inay guriyo sameystaan marka mesela qofka doonaya inuu lacag ila konton kun ka badan soo dirsado si guriyo sameysto kale bal ka waran arintaas si ay yeeshaan marka hore waxaan ku sheegayaa lacagu mamnuuc ma aha in la diro ama la isu diro taa dunidu ma mamnuucin oo waa fasax bay dunidu tahay laakiin waxa la xaqiijiyo oo la doonaya in la hubiyo lacagtani meesha ka timi iyo meesha ay ku dambeynayso labaduba ma yihiin meel xalaal ah oo sharci ah مثلاً إنك هتقول الدسان يدعي دي سامجرت والله ما أدري العقد هذا يقول أكو دسان تاسوا شرعي لكن وحال نظام كلا دقي بالله مريا قف كائن شرعي سيلا مريا قف كحفيزك كسر دري إن وحي وكرهبي دولة داس أي كرهبتي وفليو بالله كرهبا لكن العقد ممنوع معها هدو قف واحد دارات الدنيا إن وحكوا قادنا حفيزك يقولوا بتجي أو يديني يا المركول دوري إنه العين تعلق درويا والعين تعلق بندريا محل كرهبا أنت هاسون بابك فلان الشركة دي نبريهن دم بيو وحن كواركي حفيسية إذا قارهن هرجيسة مركان إجنو إن نظام عصبورين على الكمبيوتر أو سيدي بانان كوكلا ما يصيرون له هذي النظام كاسوح وين بكتري سيدي تذكر مركب أيوة قال لهين لوح لا صادرين إن لا صادرين يو إسكو حركة حاجة إسكو ورقبك حفيسية دينا ها تاسوا تانو ده أنا أبتشدني
وارهن أو وحنا بريها دنبه كل أنو حب داتا عصبان وسميسنا وحاجة تكنولوجيا مركز تاسي ويصور الرئيسي حق فضوين تلعكتا جارهان حق لعجه الشرعي أها سيدي فايلينكي قفكي أن لو وين مدو كم مدو مركز الله بعضه قفكي الله هلا مركبة إيو ديو أي رخصتي أو أنت هراء كسر رخصتي shirkan waxaan ku arkay dad badan oo iyaguna ka jeediyay khudbado ama sayid kala qayb galay doodaha ku saabsan waxa kamid ah midalan Salebaan Axmed Guuleed oo ah gudoomiyaha jaamacadda Amuud waxaan ku arkay Cali Jirde wasiir ay iyaguna ka soo qayb galay wasiirka maaliyadda kamid yahay midalan oo kale waxa kale oo aan ku arkay midalan rag sharciga yaqaan oo kamid yahay Dr. Faarax Maxamuud Maxamed marka ma xagga aqoonta idinka kaabayeen kuwaasi ها حاجة أقول تناقة كابين شركة مادام وياهي شر عالمي اللي يسوق ذا يمي وح رجع أقول تلادن ولو بهاي اللي يمادن يمدحلا مسؤولين تا أنت بقى أنا جاكو عسوني وأنا نو يمادن وأنا كم هتني mahadsanid kaas wuxuu ahaa Maxamed Siciid Ducaale dahabshiil oo shirkadda dahabshiil weyn mulkiilaheeda ah oo aan wareystay maanta wareysiga intaas ku leeyahay